haddii aan kaaga warbixiyo xaaladda gobolka Tigray baryahanba way iska qasneed sida aad la socotay waxa ay dawladda federaalka Itoobiya ay ku daadisay ciidamada u fara badan oo ciidamada federaalka Itoobiya ayaa lagu daadiyay ciidamadaasi waxa ay ku hubeysan yihiin hubka noocyadiisa kala duwan siiba waxay wataan diyaaradaha qumaatiga u kacayay wataan shirada ayaana meeshaas ka socda gobolka gaar ahaan magaalada Adwa oo kale shirar ayaa baryahanba ka socday marka waxyaabaha la isweydiinayo waxa weeyaan sababta hadda maxaan ku dhahay culays inta leeg ay u saartay culayskuna wax kale ma aha waxa weeyaan waa madaxii hore ee Suldaanka Getachew ayaa magaranaysa lagu daba jooga sidii magaranaysa ninkaasi oo gacanta loogu dhigi lahaa sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee Itoobiya waxa uu sheegay inay in badan ka codsadeen inay soo dhiibaan ninkaasi dambiilaha laakiin ma dhicina waa ay ka gaabsadeen sida awgeed ba yaa loo adeegsanaya awoodan ciidan ayay u adeegsanayaan marka waxa la dhihi karaa xaaladan waa xaalad ku soo cusboonaatay guud ahaanba maxaan ku dhahay gobolkaasi Tigray waxay iyaguna galeen difaac ayay galeen xaaladda markii dadka saadaalinaya ama siyaasiyiintu waxa ay ku tilmaamayaan xaalad ka duwan sidii hore ay ku tilmaamayaan wari Axmed maxaa ka dhalan karaa isleedahay talabada military iyo diyaaradaha dul heehabaya gobolka Tigray ee uu qaadayo maamulka Abiy Ahmed maamulka Abiy Ahmed waxa ka go'an Maxamuudow sidiisaba dadka dambiilayaasha ee fayska hore ku jira inay dawladda ay gacanta ku dhigto dambiyada guud ee ka dhacay habala kala dambi badnaado laakiin ninka mas'uulka ka ahaa waxaan oo kala amrayay dadka u adeegsanayay maxaan ku dhahaa dhibaatada faraha badan ninkan ayuu ahaa in badan ayay magaranaysa baarlamaanka ayaa ka fadhiistay xeeralyaha su'aal laga weydiiyay sidaan hadda ka horba ku sheegay marka arintan waxa weeyaan way ka go'an tahay maamulka Abiy in uu ninkaasi gacanta ku soo dhigo laakiin dhanka kale waxa ay sheegayaan qoladan maxaan ku dhahay maamulka gobolka Tigray waxa ay difaacayaan ninkaasi sidoo kale albaabada ay xidhan difaacayna galeen waxa kale oo ay sameeyeen bambooyin fara badan ayaa meesha lagu qabtay bambooyinkaasi la qabtay waxa ay sheegayaan in gobol in lagu wareeshir ka socday meeshaasi maqaalo ay leeyihiin bambooyin fara badan ma qabanay anyway waxaad moodaa in saxaafadda ay wax badan adeegsanayaan ayaad moodaa anyway marka la isku soo duubo waxa ku soo beegaya ninkan wuxuu ahaa dadka ugu horeeyay ee fayska hore dambiga galay sida daraadeed hay'adaha xuquuqul insaanka iyo dawladda Itoobiya waxay rabtaa si cadaaladda iyo sinaanta ay sheegayso loo meel mariyo in ay ninkaas ay gacanta ku dhigaan Axmed waxa jirta in maamulka Tigray uusan la awoodahayn maamulada kale ee ka jira dalka Itoobiya Tigray dhowr iyo 20 sano ay dalka Itoobiya soo xukumayeen waxay haystaan hubka ugu badan ee dalka Itoobiya yaala waxa gobolkooda ku yaala warshado fara badan oo soo saara hubka waxay u badan yihiin saraakiisha ugu sarsareysay ciidamada dalka Itoobiya iyo sirdoonka iyo dhinac walba suurtagal ma tahay Abiy Ahmed inuu ku guuleysto duulaanka ka dhanka ah maamulka Tigray gaar ahaan Getachew Asafe lama saadaalin karo waxa la leeyahay hadda kuma uu guuleysan karo ayaa la leeyahay maadaama ayaga isku duuban yihiin waa dad isku duuban dhanka kale waxa kaga kacsan hadda maamulkan qoladan Tigray waxa ku kacsan qoomiyada qiimita leeyahay ku jirta gobolka maxaan ku dhahay amxaarada marka qoomiyada laftigeeda iyo dadka macaya kuwa mucaarka gobolkaasi ka soo jeeda amxaarada laftigooda waa ay ku kacsan yihiin marka iyagu mar walba waxay isku dahayaan in ay magaranaysaa gobolkooda ay xidhaan oo isdifaacdaan laakiin waa laga awood badan yahay oo dhankaana dawladda Eritrea heshiiska dawladda Itoobiya ama maamulka maxaan ku dhahay Abiy ayaa dhankaas shaka inkastoo ay ku tilmaameen heshiiskii hore ee dhexmaray maxaan ku dhahay maamulka Abiy Ahmed iyo dawladda Eritrea inkastoo ku tilmaameen heshiis ay gaadeen laba shakhsi haddana waxa la dhihi karaa markii xaaladda la saadaalinayo waa bilooyin wax sii socon kara weeyaan laakiin wax cimri dheer qaadan kara oo la dhihi karo ninka waa ay difaaci karaan waayo ma haystaan maxaan ku dhahay awood sare oo dhanka reer galbeedka ama wadamada Yurub ama Mareykanka ama meel kale ku tirsan yihiin ma jirto wadan xuduud la leh oo ay magaranaysaa si gaar ah cilaaqo la leeyihiin ma jirto dawladda ugu dambeysay Eritrea ay leeyihiin heshiiskoodii waxa wada gaaray laba shakhsi ayaa wada gaaray marka go'doon bay ku jiraan si guud ahaaneedba go'doonka ay ku jiraan ma noqon karaan dad ku sii socdo oo magaranaysaa kun kamera dhaliya ma noqon karaan waayo badna male meel kale oo ay u cisraan mala amxaara guriga amxaarana ay leeyihiin gobolkaas
gobolka canfarta kaliya baa la dhihi karaa xoogo waa isu furan yihiin iyaguna dhulaya si buuxda gacanta ugu haysa maamulka Abiy Ahmed waxa ka go'an inuu bedelo madaxda maamul goboleedyadii hore isagoo ku soo guuleystay maamulka Soomaalida kii canfartana ku guuleystay ma isleedahay uu ku guuleysan doonaa gobolka Tigreega in madaxda hadda ka arrimisa uu bedelo oo halkaasna u magacaabo ama loo soo doorto madax isaga ka amar qaadata waa suuragal maxamuudow waayo ra'iisul wasaare wuxuu ciyaarayaa talaabooyin maxaan ku dhahay dadku ay inta badan ku taageerayaan ayuu ciyaarayaa markii si loo fiiriyo waxa la dhihi karaa muddo way qaadan kartaa laakiin wax muddo dheer si qaadan kara ma aha waayo waxa weeyaan waxa jira dad fara badan oo hadda la shaqeynaya ra'iisul wasaaraha oo ka soo jeedo gobolkaas ayaa jira oo doonaya in ma garanaysaa maamulku horeeyo dadkii kale maxaan ku dhahay dhibaatada geystay in gacanta lagu soo dhigo waayo saraakiil fara badan yaa jirta oo qaar maxaan ku dhahay iyagu ay qabteen maamulka kuwa ku sugan maxaan ku dhahay gobolka Tigray marka la fiiriyo waxa la dhihi karaa muddo un bay sii weeqi karaan laakiin dad maxaan ku dhahay isdifaaci kara ma waxa uu ku guuleysan kara ma aha maamulka ninka la yiraahdo ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna waxaan filahayaa ama dadka sida la saadaalinayo in uu bedeli doono oo muddo doonto waxa ku qaatay inuu bedeli doono ay aad ugu egtahay marka dadka siyaasadda indhaysas ay ku tilmaamayaan Ahmed maxaad u malaynaysaa inay ku dambeyn doonto xiisadan soo cusboonaatay ee maalinba meel soo mareysay haddana marase heerkii ugu sareysay ee u dhaxaysa Addis Ababa iyo Maqale maxamuud waxa la dhihi karaa markii aan ka fiiriyo ilaa laba qaybood qoladan hadda maamulka haysa maxaan ku dhahay oromada gaar ahaan Abiy Ahmed iyo maamulka Addis Ababa hadda ka taliya waxa muddo waa maamul ku yimid isbedel siyaasadeed ku yimid xukuumadii faraha badnaa ee Tigreegu ay gumaysanayeen ama dhibka faraha badan ay u geysteen ka dulqaaday baad moodaa inkastoo jabhadii faraha badnaa iyo maxaan ku dhahay ay siyaabo fara badan loo riday laakiin haddana isku soo markii la fiiriyo waa maamulkii bedelay way qomiyada Tigreeguna waxay geysteen dhibaatooyin fara badan bay geysteen in hadda ma garanaysaa ama garab ku siinaya international dawliga ha noqoto ama ha noqoto maxaan ku dhahay gudaha Itoobiya ma jirto laakiin marka barbarka kale laga fiirino waxa la dhihi karaa maadaama dad isku duwan ay yihiin hadda ka hor ay ma garanaysaa soo jabhadeeyeen ama ay garanayaan siyaasadda Itoobiya sirdoonka iyo dawladda Itoobiya saraakiisha ay aad ugu milan yihiin waxa la dhihi karaa durba lama lileejin karo laakiin waxa waa dawladna way ka adag tahay maamul goboleed markii waxa jirta in hadda la saadaalinayo in lagu soo rogay xayiraad oo wax baabuur ama diyaaradaha gobolkaasi aad oo ka shaqeysay in si durba jirin oo xaaladii iska socodkaanayaan marka waxa suuragal ah in ugu dambeyntii maamulkaasi lagu kaco dadka shacabka ay ku kacaan oo dadka ay noloshoodu ay ma garanaysaa laga yaabo ay cuslaato in ay ku kacaan oo laftigooda dadka shacabka ay garabsiyaan si noloshoodii iyo hawlahoodii iyo ganacsigoodii ay dib uga falgalo shucuubta kale Itoobiya dhinaca kale waxaa jirta in Sabhatnaga oo kamid ahaa aasaasiyaashii ururka TPLF iyo EPRDF uu sheegay in heshiiskii dhexmaray Itoobiya iyo Eritrea oo ahaa heshiis u dhaxeeya laba shakhsi loona baahan yahay heshiis rasmi ah oo dhexmara labada dawladood hadalkaasi maxaa ku soo beegay baad isleedahay xilligani waxaa la sidii karaa qoobiyadan ama maamulkan maadaama dhibaato fara badan ay geysteen waxay isku dayeen markii hore inay ma garanaysaa ay sameeyaan wax la yiraahdo inay dawladda Eritrea ay la hadlaan oo si hoos ay ula hadlaan oo ay ma garanaysaa ay la xaajoodaan midana uma suuragelin oo hadda ka hor uma suuragelin in badan bay isku dayeen in hawshaasi ay u dhaqdhaqaaqdo markii taay u dhaqdhaqaaqo weeyday inkastoo la sheegay in odayaal dhaqameed ay mar u direen ayay waxay ku tilmaameen heshiiskan inuu yahay heshiis laba shakhsi sababta ay u saawilayeen waxay ka dhadhamiyeen in ra'iisul wasaaraha Abiy hadda hogaaminaya federaalka Itoobiya iyo siyaasad forte iyo guud ahaan geeska Afrika inuu ka jiro dhaqdhaqaaq iyaga aan hadda ma garanaysaa u saamaxaynin inay ciyaaraan siyaasadii hore ay ciyaari jireen geeska Afrika marka taa ayaa keenaysa inay ku tilmaamaan midda labaad waa qodobka labaad ee waxa iyaga markii la beegsanayo lagu daba jiro maxaan ku dhaqaalihii ay dalka ka lunsadeen lagu daba jiro maxaan ku dhahay dad fara badan oo ay laayeen ama dhibaatadii ay geysteen siba hay'adaha xuquuqul insaanka lagu daba jiro waxaas oo ilba waxay beersanaysaa in ay maamulkan ay cadaadis ay laftigooda ay saaraan oo gooni isu abaabulaan oo ay guud ahaan maxaan ku dhahay Itoobiyada kale
ay ku furaan waxa la yiraahdo tashwiish saraakiishooda xataa ka midka maxaan ku dhahay federaalka isku dayaan inay magaranaysaa xuduudaha inay ka abuuraan dhibaatooyin ay ka abuuraan marka waxa la dhihi karaa waa neef galgalan ama neef gowracan kama gudo ayaa la dhihi karaa maadaama 27 sano ugu dambeysay ay dhibaato soo geysanayeen waxa la dhihi karaa waa nafsiga baa haya meel ay hadda ula galgashaan ma ay jirto waxaana isleeyahay mardo albaabada ayaa loo soo xiri doonaa wax ma garanaysaa sidaayana mala sidaas ayaan ka aaminsanahay